golaha dhaqaalaha qaranka oo 12 bishii Juulaay ee sanadkan uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta daafuray barnaamijka ay ugu shaqeyn doonaan isla markaana lagu shaacinayo xubnihiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre kadib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. golaha dhaqaalaha qaranka oo ka kooban 9 xubnood ayaa hadafka loo aasaasay waxa uu yahay in dawladda ay kala taliyaan horumarinta dhaqaalaha, diyaarinta istiraatiijiyadda siyaasadda dhaqaalaha iyo maaliyadda, isla markaana lagu dhaqan geliyo nidaam hufan oo lagu maareynayo maaliyadda dawladda iyo dadweynaha, taasoo meesha ka saaraysa dabciga xun iyo muuqaalka foosha xun ee ku suntan qarankeena la xiriira musuqmaasuqa, balse ay hadda dawladda Soomaaliya kula jirto dagaal xoogan. wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in golaha dhaqaalaha qaranku ay la shaqeyn doonaan hay'adaha dhaqaalaha ee jira isla markaana ay qayb ka qaadan doono horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. mudane wasaare waxay u muuqataa in golahan maanta daahfurayno xukuumadda Soomaaliya horseedi doono horumar, hufnaan dhaqaale iyo in la jaan qaadno caalamka. wax badan ayaa Soomaaliya ka maqnayd meelo badan oo caalamka oo dhaqaalaha laga hadlo. waxaan rajayn doonaa hadii golahan wax badan ka qabto arrinta talooyin macquulana ka keeno. talooyinka ay bixinayaan golahani waa talooyin ku saleysan cilmi iyo cadeymo iyo aqoon dheer oo leeyihiin arrimaha dhaqaalaha. dhismaha golaha dhaqaalaha qaranka oo muddo dheer ay ka soo shaqeynaysay wasaaradda qorsheynta oo ku shaqeynaysa siyaasadda xukuumadda ee horumarinta dhaqaalaha. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay dhismaha golaha dhaqaalaha qaranka ayaa xusay inay tahay hanaan lagu dhaqan gelinayo hufnaanta hanaanka horumarinta dhaqaalaha dalka, taasi oo ku timid dadaal dheer oo socday muddo sanad iyo bar ah. dhisidda golaha dhaqaalaha qaranka ma aha kaliya inaan rabno inaan dhaqaalaha wax ka qabanno, ma aha inaan dalkeenna horumarino, waxa ay tahay inaan aqbalnay in nagala shaqeeyo dalka inaan wax ka qabanno. waxay tahay inaan aqbalnay inaan buugaagteenna furno. waxay tahay inaan aqbalnay in nalala fiiriyo haddii laalaab iyo qayaana jirto in wax laga qabto. waxay tahay inaan aqbalnay maadaama aan rabno inaan dunida dib u lalfagalno in aan aqbalno dadka aqoonta u leh inay noo yimaadaan ay nagala shaqeeyaan. waxay tahay inaan aqbalnay caqabadda ugu weyn oo hortaagan dal in la bedelo inay tahay inay siyaasiyiintu aqbalaan in la bedelo. anaana maanta idin ballan qaadaya inaan diyaar u nahay in wax laga qabto. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan isugu nimid si aan u aragno waxaan hore loo arki jiray, si aan u aragno mustaqbal carruurteenna ay ugu noolan karaan, in dalkeenna uu meel wanaagsan ku yaallo, in dadkeenna ay yihiin dad shaqeeya, in adduunyada kale dadkooda ay duqoobayaan, kuweennuna ay dhallinyaro yihiin, in meel walba oo aad dalkeenna ka fiiriso ama kalluun ama beer ama shidaal ama gaas ama meesha aan ku naalno ay tahay fursad dhaqaale. waa wax la wada ogyahay. dawladda Soomaaliya ayaa horumar weyn ka sameysay dhaqaalaha muddada ay jirtay, taasoo keentay in hay'adaha dhaqaalaha caalamiga ay ammaan iyo bogaadin u soo jeediyaan dawladda Soomaaliya. ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay qaadanayso talooyinka wanaagsan ee lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka, taasi oo ah dhaqan cusub oo lagu horumarinayo dhaqaalaha dalkeena. aniga madaxweynaha iyo xukuumadda waxaan idin ballan qaadaynaa talooyinka aad keentaan oo aan aaminsanahay inay noqon doonaan talooyin u wanaagsan dalka, inaan ku shaqayn doonno qaadan doonnana. sababta aan idinkugu yeeranay oo aan u aqbalnay inaad wax nala qabataan waxay tahay inaan aqbalnay inaan ogolnahay in wax nalala qabto inaan u baahannahay. waxaan rabaa inaan u sheego waagii hore haddii uu ra'iisul wasaaruhu idinla hadli jiray waa laga soo gudbay arrinkaas. maantay waxaan aqbalnay nidaam ku dhisan daahfurnaan. maanta waxaan isu keennay rag iyo Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn oo aan rabno inay nala taliyaan, wax nala hagaajiyaan,
laakiin ceebteennana ay noo sheegaan. maanta waxaan aqbalnay inaan marno xanuunkii ay khasabka ahayd in la maro si kuwa naga dambeeya ay ugu noolaadaan nolol ka fiican nolosheenna. maanta marka waxaa soo dhammaanaysa marka ragga halkan isugu yimid oo aqoonta leh oo aan garanayn qabiil iyo xildhibaan iyo wasiir iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare laakiin garanaya nambarro lagu qoro warqad. annaguna aan ku khasbannahay nambarradaas warqadda lagu qoray inaan u fulino sida ay tahay. maanta waxaan rabaa marka inaad iska ilowdaan soomaaliyada hore aan soo maamuli jirnay. dhaqaalaha dalka maanta waxaa u bilowday nidaam cusub oo ah Soomaaliya cusub oo ku salaysan qaabka dunidu ay u dhaqanto, qaabka dunidu ay u shaqayso. dhismaha golaha dhaqaalaha qaranka ayaa qayb ka ah qorshaha lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka ee dowladda Soomaaliya ay wado si dadka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo kheyraadka la ku manaystay isla markaana looga saaro faqriga, taasi oo ay saldhig u tahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumada oo keentay in dadka Soomaaliyeed ay ka gaajoodaan kheyraadka Ilaahay ku manaystay dalkooda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.